halkani waa alxaqiiqa. warka xiisihiisiyo xaaja ka qarsooniyo halkaa dahsoona alxaqiiqa weeyaan xogtu meeshay taa. barnaamijkan idin haya waxa weeyaan maanta ninkan la yidhaahdo sheekh shibili ayaa wuxuu ka hadlayaa oo dhegaysan doontaan kliibkiisa. uu wacdiyayaa ummadda, wuxuu ka wacdiyayaa in dadka la caayo inay dhib badan tahay. waxa uu wacdigiisa ku jira inaan ummadda qabaa'ilka la caayin sida dadka Soomaalidu ay caadaysanayaan oo dadka qaarkii ay sameynayaan qabaa'ilka aan la caayin. isagii baana caayaya qabiil daayo qaran dhan oo weliba been ku caayaya uu ka sheegayo oo aan jirin. ninkaasi horaan uga hadlay maalin dhoweyd waxaanan sheegay inuu munaafiq yahay, because munaafiqa uu jiray weligiiba ilaa cahdigii nabiga uu jiray. asxaabtii dhex fadhiyeen munaafiqiintu ayagoo la cibaadaysanayo oo waxay sameeyaan ee wanaagsanba sameynaya, labanlaabkeeda xunna asxaabta kula dhex jira iyo islaamkaba oo isku diraya, been sheegaya, munaafiqeynaya, xumaanun dee intaa wata, haddana asxaabtii dhex fadhiya. sidii bay maantana u jiraan. dad badan baa qofkaba hadduu khamiis soo qaato aayado qur'aan iyo axaadiis akhriyo u qaadanaya inuu caalim yahay. arrintuna caynkaa maaha, because xilligaa cahdiga nebiga aan ka sheekaynayo dee kuwii berigaa nebigaba ag joogay ee asxaabtiisa ka mid ahaa ee dhex fadhiyey dee way joogaan maantaba. sidiiba masaajidada inoogu dhex fadhiyaan oo ay khamiiska u sitaan oo waxay doonaan iyagoo samaynaya haddana inagu soo gabanayaan. ilaahay baana qur-aankiisa kuwii hore ku sheegay in kuwa waxay ka hadlayaan haddana falayaa ay kuwa ugu daran yihiin. kuwa waxay dadka ka waaninayaan ayagu samaynayaan inay kuwa ugu daran yihiin. waxaa la yidhi isu maahmaahe oo maahmaaho. ninkan sheekh shibili la sheeganaya isaga isu maahmaahaya. maantana way badan tahay culimada nimanka sheeganaya ee waxay doonaan samaynaya ee wax waliba ka suuro gala. waxaad arkaysaa niman u tafaxaytay oo qurbaha u badan masaajidaan u dhisana oo intay dumarka iyo maadsidaa ku dhex dhacaan lacag ka urursada oo masaajid baan u dhisana yidhaahda oo lacagtii ay urursadeen waxna qaata, waxna masaajidka ay madrasada ka dhex samaynayaan ku sameeya, oo hadhowna qabiil isu qabsada. qabaa'il bay qurbahan dee qofkii joogay wuu og yahay, qofka aan joognin kuwa aan joogin oo sheegayaa qabaa'il bay isu wada haysta. masaajidkii way qabyaaladii ay la galeen. hadday diin leeyihiin oo daacad yihiin oo ay caqli ku soconayaan oo aanay waxa aan ku sheegayaa ku badnayn dee may dhacdeen. ayaga caqligii iyo diintan ay barteen ay hagi lahayd oo ay ka hagi lahayd xumaanta. dadkuna markuu actin garaynayo wax runta ah ee aanu ahayn ee uu afkana wax ka sheegayo ficilkiisuna ka duwan yahay dee waa munaafiq. iminka ninkani waxa ku cad labadiisaa hadal dee waxa aan ku sheegayo. hadalkiisa horena dhegaysta ee uu dadka u adeegayo, ka dambe uu ku hadlayana isu dhegaysto idinku magac u bixiya. afkaaga ha laga nabad galo. maanta kanaad caay, maanta kanaad xamani, labadanaad isku diri. weliba intay qof ahayd meel dhow way joogtay, qabiil iyo qowmiyad dhan baad caay ood xaman ood maanta o dhan wax ka sheegi. qof gaarahood xamatay baabad i cafi dhihi kartaaye qabaa'il iyo qowmiyadaada wax ka sheegtay xaggeed ku wada arki ay kugu cafin. soomaalinka qiyaamuun maaha safar laguu soo galo. halka eray ee cayda eed dhahdo hal qof haddaad caydana hal qof baa saf kuu soo geli. qabiil dhan markaa caydana qabiil dhan baa saf kuu soo geli oo salaad iyo saka kaa wada raba iyo sadaqa aad la baxday ajirkeed kaa wada doonaya. intaad dhib isu geysatay ma aragtaa hal erayood ummad dhan wax kaga sheegtay
mid baa wax isku dirdiraya mid baa war xunke oo dadka war intuu kala ordo booliis iyo sirdoon iyo dawlad ku dacweynaya mid baa dadka ceebahooda meelaha kaga sheekeeya Soomaalidu intay fudaydsadaan Soomaalidu waa mujtamac cay badan waa mujtamac afxun waa mujtamac afkoodu uu jecel yahay waxa xun iyo nijaasada uu jecel yahay baana qisadii soo noqnoqotay oo galbeedkii way soo dhaaftay liba xalamtana soo dhaaf khaniisiintii Soomaali bay iskuulada iyo jaamacadaha ka dhex samaysteen waatan hadda Hargeysa agaga arkeeda iskuulada khaniisiinta ka furan kuwii ugu caansanaa dunida ee khaniisnimada u oleynayay baa dhex taagan ilmahan iyo gabdhahan markaasay madaxdeennina difaacaysaa ay waardiyeynaysaa maxaa la barayaa dadka khaniisnima la barayaa baadariga maraya waa khaniis maalqabeynka maraya waa khaniis macallinka marayana waa khaniis ilmaha meesha lagu ururinayo khaniis ma akhlaaq fiican ilmo ku bari nin laba isku darsaday labadii qowm luud gaalnimo iyo khaniisnimo isku darsaday ninka waxa khayrka iyo wanaagga ka sugiyo isku bari muxuu yahay horumarka iyo wanaaggu ku keenay muxuu yahay